Assalaamu calaykum. Soo dhawow walaal. Maanta barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay Lethal Boy ama cunugii yaraa. Waa magac bambadii atoomiga ahayd ee lagu dhuftay magaalada Hiroshima ee waddanka Japan sanadu markay ahayd 1945 bishii Agoosto. Sidoo kalena waa bambadii ugu horeysay ee nuclear ah ee loo adeegsaday ama lagu dhufto magaalo ay dad badan ku nool yihiin. Bambada ayaa waxaa lagu nashqaday shaybaarka qaranka ee Los Alamos, waxaana lagu farsameeyay xarunta amniga ee qaranka Y-12 ee ku taala gobolka Tennessee ee waddanka Mareykanka. Waxaana riday diyaaraddii lagu magacaabi jiray Enola Gay B-29 oo uu duuliye ka ahaa ninkii lagu magacaabi jiray Paul Tivetes. Waxaana bambada culeyskeeda uu dhammaa 40 oo ay weheliso 46 kiilo oo maadada uranium-ka ah. Awoodda qaraxeeduna uu gaarayay 20 kiilo oo tan maadada TNT ah oo aad u qaraxdan. Maxay ahayd saameynta ka dhalatay qaraxii atomikada ee Hiroshima? Waxaana ka dhalatay saameyn aad u weyn oo ay ugu horeyso dhimashada dad lagu qiyaasayo inay gaarayeen 20,000 oo qofood, iyo burburka boqolaal guri, iyo saameynta faafitaanka falaaraha shucaaca, taas oo ugu darsameen cudur nafaqo xumo iyo tinta oo ka daadata, iyo kansarka dhiigga, iyo sidoo kalena kansarka sanbabada iyo cudur kale. Intaas waxaa inoogu eg barnaamijkeena maanta. Waxaana soo diyaariyay barnaamijkani Ustaad Maxamed Cali, waxaana idin soo gudbinayo anigoo ah Khalid Cali Guuleed. Tan iyo muuqaalka xiga, sidaas iyo nabadgelyo.